رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد برre iyo رئيسل وزراء xululejinta محمد حسين روبلي ayaa si wada jir ah maanta u kormeeray xarunta cusub ee xukuumadda iyo رئيسل وزراء oo heer gabagabaha maraya wafdiga رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد برre ayaa waxaa kaloo ku heliyay qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta رئيسل وزراء ku-xigeenka safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka xooga dalka taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Warta Nabadda waa booqashadii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu ku tago xarumaha dowladda tan iyo 25 Juun 2022 oo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee siiyeen codka kalsoonida dhanka kale ra'iisul wasaaraha xululejinta Soomaaliya Roble ayaa wuxuu sheegay inuu aad u faraxsan yahay maanta in uu ku soo wareejiyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamza xarunta uu ka shaqeyn doono oo dhismaheedu gabagaba yahay waa kan ra'iisul wasaare Roble oo hadalkiisa wata ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre walaalkay qaaliga ah waxa maanta farxad ii ah in aan kugu soo wareejiyay xarunta cusub ee golaha wasiirada oo labadii sano u dambeysay dhismuhu ka socday oo haddana heer gabagaba ay marayso waxaan jeclahay inaad iga gudoontid maanta oo ah maalintii xil wareejinta anigana ay tahay maalintii shaqadii ugu dambeysay laakiin xafladii ay dib ay hadhow inoo tahay laakiin hadda ay hordhaci tahay inaan kugu wareejiyo xarunta golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku rajeynayaa inaad ku shaqaysid halkaan kugu soo booqdo iyadoo shaqaynayso hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo soo dhawow ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay waa xarun runtii aad u weyn oo aad u qiimo badan isla markaana u diyaarsan in xukuumaddu ku shaqayso waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Qatar ee walaalahan nahay oo dhistay waxaanan runtii mashaariic badan oo kale oo ay dhistayna waa jiraan oo ognahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay dhamaystiraan mashaariic kale oo fara badan waa ka rajaynaynaa way mahadsan yihiin runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshan muhiimka ah wadankii iyo dawladnimadii lagu soo celinayo waan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada amniga ee runtii sugay suurta galiyay in mashruuca inta leeg halkan laga dhiso waqti dhow aan la iman karin runtii aad iyo aad baa iyagana u mahadsan yihiin ilaahay idankiisa anaga waxa naga go'an mudan ra'iisul wasaare inaan marka ugu horeysay la dhameystiro hawshan waxyaabaha ka dhidhiman inay soo degto xukuumaddu aniguna waan soo degayaa ilaahay idankiisa insha Allah meeshan aad ugu imaan doontaa ilaahay idankiisa aad u mahadsan daawada halkan naga daawanaysiin oo wanaag qoyska Allah u barteen wararka ugu dambeeyay fadlan hadaan cusub subscribe dheh soo muuqaalka u gaaro asxaab kale